geedka maangadaasi waa mid ka mid ah geedaha waqtiga dheer la sugo sida ay u midheeyaan. Dadka qaarna waxay sheegaan 4 sano ilaa 5 sano ayaa la sugaa sidii midhahayga koobaad looga goosto. Kadibna midho dhalkayga ayaa sii siyaada oo ilaa 15 sano ay ka gaadho. 15 sano markay gaadhana waxa u dhamaada midho dhalkayga oo in dib loo beero ayay u baahan tahay. Intaa kaliya maahayna bacriminteedu waa mid loo maro dariiqo dheer oo waqti la eegto ama biyo nooca loo waraabiyo sida waqtiyada kulaylaha ama waqtigu dhulku diiran yahay. Camuudda oo nooca iyo dadaal dheeriya waqtiyo biyaha la waraabiyo oo u gaara. Sidoo kale in lagu taglaalo geeda kale oo lagu bacrimiyo sidii u noqoto geeda midho dhala fiican ama midho macaan dhala. Waxaana la geliyaa waqti iyo dadaal dheeri ah oo ka badan inta geedaha kale la geliyo. Isla goobtana waxa kaaga muuqdo nin dadaal dheeriya geliyay oo ku dadaalay geedahan inuu beero ama cambadan inuu beero. Sidoo kale dadaalkii dheeraa iyo rafaadkii waxa kaga dhacay isla dhibaatadan oo dadku ay leeyihiin dad gudobi ka dhaxaysay ayaa yimiday oo sidan u galay. walow dad kale ay sheegayaan in dabayliyo duufaano ay sidan u galeen. oo hadday dabayliyo duufaan ahaan lahayd geedaha way qaadi lahaayeen oo sidan uma sixseexiyeen. Waxay u badan tahay cid gudobi ka dhaxaysay ama xumaane ka dhaxaysay inay sidan u gashay. Cadowtinimada halkan markay gaadho waa mid aan laga soo kami karin. Waa waqtigii geeduhu dhaleen ee midhahooga la goosan lahaa ama midhuhu ay bislaan lahaayeen ama ay u baahnayeen waqti yar kaliya si midhaha looga soo goosto. Waxay la eegteen isla waqtiga xun oo geedihii gunta ay ku wada jareen. Dhabar jabinta ka xunna uma malaynaya inay adduunka soo mari doonto isla ninkaas hadduu nool yahay. Tan oo kale way ma soo joogtay. Ilaahay kuma tuso xaalad caynkan oo kale ah adigana kugu rido. La sheergaray walaalaha kale waxa dhici karta inay dareemaan xanuunka qofkaas uu dareemay. mahadsanid. Ilaahay tacabkaaga ma khasaariyo.